waxaa maanta magaalada Boorama si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo horkacayaan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Ucd Injineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka wadani Dr. Ciro wafdigaasi oo ay wehelinayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiyadaasi ayaa waxa si diiran gudaha magaalada Boorama ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacbi weynaha kala duwan ee ku nool magaalada Boorama wafdigani ayaa magaalada Boorama u yimiday in munaasabada 18 May ay kala qayb galaan shacbi weynaha kala duwan ee magaalada Boorama si ay ula qaybsadaan dareenka maalintaasi waxaana mas'uuliyiintaasi kala duwan loo diyaariyay goob fagaara oo kala hadleen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee magaalada Boorama iyo gudoomiyaasha xisbiyada Ucd wadani kuwaasi oo soo dhaweeyay wafdigani aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya ka gudoomiye gobol ahaan ee xisbiga wadani ku hadlaya aad iyo aad baan dadweynaha u mahadsantihiin kulley waan dareensanahay oo dareen shacab baad u timaadeen inagu waxaan tabaynay oo kaliya macaaradadaan tabaynay waa taa maalmahan bilaabatay maanta halka waxaynu ku soo dhaweynaynaa in soo baxnay cadceedda labada xisbi qaran ee naga soo booqatay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland barrina waa maalintii qaranka weyn insha Allah taa waan sugaynaa waxa weeye waan idin soo dhaweynaynaa xisbigana waan soo dhaweynaynaa haddii aynu nabad nahay maanta waxay nala joogaa gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga Ucud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweynaa anigoo ku hadlaya magaca gobolka gaar ahaan waxa weeye maanta message-ka ay noo sidaan hal fariin gaar ah bay maanta inoo sidaan waxa weeye fariintaasina waa fariin ay ka midaysan yihiin sidaan filayo dhammaan labada xisbi waxaynu u baahannahay inaynu dhegaha u nuglayno oo aan runtii u soo jeesano fariintaa maanta labada xisbi ay wadaan aad iyo aad baan lagu maqnayaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen wafdiga ballaaran ee midowga xisbiyada qaranka ay wataan waxaan kaloo leeyahay doorashadii waa la qabanayaa diyaargarooba ree awdad had diyaargaroobaan doorashada diyaargaroobaan waxa weeyaan fadhiga ka kaca waa inaan isbeddel dhaba samaynaa waxa weeyaan xorriyatu qowlka iyo saxaafadda madaxa bannaan oo ay iyadana suurto geliyeen shacabka reer Somaliland iyadana maanta hadh baa saaran waxaan ognahay in saxaafaddii madaxa bannaanayd iyo maxaa la yidhaahdaa wariyayaashii ay maanta ku xidhan yihiin saldhigyada Somaliland guud ahaan iyo xarumaha CID-da taasina tula yeelayo ma aha waxaan marka hore aad u bogaadinayaa aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Awdal gaar ahaan dadweynaha degmada Boorama soo dhaweynta qiimaha leh iyadoo maalin qorraxdaadu kulushahay ay u soo baxeen ay soo dhaweeyaan madaxdooda isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ilaahay waxaan ka baryanaa abaar xun baa jirta in ilaahay raxmaddiisa inoo shubo waxaan kaloo ku darayaa hadalka saxaafadda waan salaamayaa waxaa jirta xorriyatul qowlka dawladda inay ixtiraamto weeye waxaa jirta iminka sargaal ka tirsan xisbiga wadani oo la raadinayo oo maalmahan oo dhanba lagu daba jiray waxaan leenahay war wax dembi u galay ma leha haddii uu hadlay qowl in la isku xidhxidhaa taas waxa weeyaan waa hajuuqina taasina suurtagal maahay naga daayaan lana xukuumadda ka daaya ugu dambeyntiina Injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxay sheegeen reer Awdalow waa mahadsantihiin maanta uma iman inaan siidhigii afuufo uma iman inaan siidhigii afuufo laakiin waxaan u imi inaan farxadda iyo dabaaldegga maalinta qaranka aan la qaybsado shacbi weynaha gobolka Awdal dhammaan shacbiga Somaliland
waxaan ku hambalyaynayaa xuska maalinta qarannimada waxaan doortay inaan la ciido oo farxadda la qaybsado reer awdal waad ogeedeen inaynan ugu qabiil aqoonin aniga siiraanya oo 6 sannadood ahaa SNMta ahaa iyo anigoo reer Hargeysa ahaa ayuu riyaala naga helay meel ka dhici kartaa Soomaaliya kama suurtageli karto wuxuu yiri markuu ku wareejinayay siiraayo wuxuu ku yiri laba arrimood baan kaaga tagayaa wuu yiri Soomaaliland oo midaysan dad iyo dalba midaysan iyo waxaan kaaga dardaarmayaa Soomaaliland cid u abtirisa uma baahnee cid wax u tarta ayuu u baahan yahay laba dhaxal gal uu kaga tagi maanta labadiiba khatar bay ku jiraan waxaanu gaarnay in maantana si fiican loo wada dabaal dago maalinteena quweyno ka bacdina la isku yimaado hadal kale meesha yaalana ma jiro taa way nagu caawisaa ma ururo reereere uma u baahanay mise madaxweynayaal cusub baynu la tartamaynu u baahanay doorasho madaxweyne baynu u baahanay qofkii doona ha ku soo baxo ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala qofku qoray soo baxaya